bari baa waxaa jiray islaan waayeela waxay dhashay 3 wiil. nasiib wanaag 3diiba way wada guursadeen. maalin maalmaha ka mid ah ayay booqatay guriga wiilkeedii ugu weynaa, waxayna weydiisatay inay habeen la hooyato, wuuna ka aqbalay. hase ahaatee salaadii subax markii la gaaray ayay weydiisatay xaaskiisu inay u keento biyo ay ku weysaysato, wayna u keentay. way weyse qaadatay, wayna tukatay, balse biyihii soo haray ayay ku shubtay gogashii ay ku seexatay. xaaskii wiilkeeda ugu weynaa markii ay u keentay subaxii shaaha ayay ku tiri, gabadhaydii xaalka dadka waayeelka waa iska sidan, oo sariirtii ayaa kaadi iga baxsatay. hase ahaatee xaaskii way ka carootay arrintaasi, wayna ku qaylisay, waxayna ku tiri ereyba midka ka xun. markaa kadib waxay ku amartay inay gogasha nadiifiso oo ay dhaqdo, waxayna ku amartay inaysan mar kale u laaban arrinkan. habeenkii xigay ayay u dhaqaaqday curad ku xigeenkeedii si ay isaguna ula barido habeen kaliya, waxayna samaysay sidii ay ku samaysay gogashii ay ku seexatay habeen hore. balse xaaskiisu kama duwaneen xaaskii hore, wayna ku qaylisay weliba si daran, waxayna ku dacwaysay ninkeeda oo ah wiilka ay dhashay islaanta waayeelka, balse iskuma dayin isaguna inuu hooyadii difaaco ama uu xaaskiisa aamusiyo isagoo weliba ixtiraamaya hooyadii. way soo tagtay islaantii waayeelka ahayd, waxayna u timid wiilkeedii ugu yaraa wiilasha. waxay samaysay sidii ay horey ugu samaysay labadii xaas ee hore ee ay qabeen wiilasheedii waaweynaa, waxayna ahayd inay gogasha biyo ku shubto si ay uga dhigto inay ku qaadisay. markii ay shaaha u keentay xaaska wiilkeedii ugu yaraa ayay u sheegtay arrinka ay samaysay, waxayna ku tiri, ha ka walwalin hooyo, waa sida xaalka dadka waayeelka ah. imise ayaan dhabtiinna ku kaadinay innagoo carruura. kadibna waxay qaaday gogashii, wayna dhaqday. waxay tiri islaantii waayeelka ahayd, gabadhaydii waxaan leeyahay saaxiib ii dhiibatay lacag badan, waxayna iga codsatay inaan u soo iibiyo dahab fara badan. qiyaasteedana ma garanayo ee qiyaasta gacantaaday sii. islaantu waxay leedahay maal aad u fara badan, waxayna tagtay suuqa, maalkeedii oo dhan ayay dahab ku soo iibisay. kadibna wiilasheedii iyo xaasaskoodii ayay isugu yeertay. waxay soo bixisay dahabkii, waxayna u sheegtay inay biyo ku shubtay 3dii gogol ee ay ku hooyatay oo aysan kaadi ahayn. waxay bilowday inay dahabkii u xirto xaaska wiilkeedii ugu yaraa, waxayna ku tiri, tani waa gabadhayda aan agteeda ku gaboobi lahaa, kuna dhammaysan lahaa cimrigayga inta ka dhiman. labadii xaas ee kale ayaa aad uga naxay arrinkaas, waxayna bilaabeen inay ka shalaayaan wixii ay hore u soo sameeyeen. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟